taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Xasan Ismaaciil ayaa maanta xilkiisa kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa munaasabadan xil wareejinta ay ka qayb galay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wasiirka wasaaradda ammaanka qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Ibrahim Isaaq Yarow. waxaana wasiirku uu sheegay in xilka sidiisaba uu yahay mid wareegta loona baahan yahay in qof walba uu maanka ku hayo arrintan. waxaana uu xusay in hogaankii hore ciidanka booliska wax badan ka qabtay arrimaha ammaanka ee dalka Soomaaliya. muxuu ahay xil wareejinta waa wax muxuu ahaa meerta ah. xilku waa wax muxuu ahay qofka yimaada kana taga waay. laakiin hay'adda qarannimada iyo astaanta qarannimo sideeda weey sideeda u jirtaa hay'addi sideeda u dhisan tahay booliska Soomaaliya sideeda u jiraa qofku waa yimaada xilka waana ka tagaa sida hadda waxaana la jooga taliyayaashii hore taliye Ahmed Jaamac iyo taliye Cali Madoobe ayaana la jooga oo booliska soo qabtay taliyayaal kalena hadda magacyadooda waa la idin sheegayay qof walba wuxuu qabto iyo muxuu ku soo kordhiyo taariikhda ayaa xusaysa saacid wuxuu ku soo shaqeeyay oo hadda xilka wareejinaya runtii duruufo aad iyo aad u adag buu ku soo toosay xilli adag buu soo shaqeeyay wax la taaban karo hadda muuqda oo aan sheegi karnana waa qabtay intuu joogay booliisku waa qabteen waxna waa dhiman yihiin in la wada shaqeeyo sidii taliyayaashii hore ay ula shaqeynayeen taliyaha hadda xilka bedelaya ay ula shaqeynayeen ayaan ka rajaynaynaa taliye saacid iyo muxuu ahaa taliyayaashii horeba inay ula shaqeeyaan taliyaha cusub ay ula shaqeeyaan oo u garab galaan asagana uu talada u weydiiyo oo ka qayb geliyo. taliyihii hore ee ciidanka booliska General Saacid oo goobta munaasabada ka socotay hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inuu si rasmi ah u wareejiyay xilkii uu u hayay ciidanka booliska Soomaaliya isagoona saraakiisha booliska ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hoggaanka cusub ee loo soo magacaabay. konseyada waxay qoraal ku wadataa dhamaanteed hogaamada oo ah dhamaantood 15 hoggaan iyo qaybta guud ee gobolka Banaadir barnaamijka booliska daraawiishta waaxda miir baarista akademiyada ururka taliska iyo horinta Xasan Geedi ee ammaanka baarlamaanka gaar u xilsaaran. ugu dambeyntii waxaa hadal ka jeediyay munaasabada General Maxamed Xasan Ismaaciil oo ah taliyaha cusub ee loo soo magacaabay ciidanka booliska Soomaaliya waxaana uu mahad gaar ah u celiyay hoggaankii isaga ka horeeyay isagoona ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono arrimaha ammaanka dalka Soomaaliya. Axmed Xasan Ibrahim